منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الحمد لله إلهي بانكم مهدنينا ولا ليال بشا بركيسا إنكو أو عافماد هينا ونودينا هينا إلها نسو قارسيي بانكم مهدنينا waa inay nicmadaasi qalbigeena ku weynaato adoo beled aamina joogo waddankaagii aamin uu yahay jirhkaagiina uu caafimaad qabo ilaaha jalla wacalaa bisha rabadaan ku soo gaadhsiiyey waa inaad ugu mahadnaqdaa dad badan baa kal hore inala soomay laakiin maanta adduunyada ma joogaana way ka intiqaaleen dad badan baa kal hore iyakoo caafimaad qabuu rabadaanku u soo galay way soomeen laakiin qaarkood maanta waxaa laga yaabaa inay bukaan ay yihiin ay jiifaan marka waa inaa nicmadaasi ay qalbigeenna ku weynaato ilaahay baa le wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa ina alinsaana ladaluumun kafaar baa ilaahay yidhi haddaad damacdaan nicamta ilaahay inaad tiro ku soo koobtaan ma soo koobi kartaan baa ilaahay yidhi runtiina waa bil aada u khayr badan weeyaan maantana waa maalin jumca jumcadu iyadoo maalmaha kaleba ka fadli badan haddana markay aad ku soo dhacdo maaragtaana bil rabadaan ajarkii iyo khayrkii uu sii ziyaadayaa oo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam xadiid waa kii lahaa maalmihiina inagu soo noqnoqonaya maalinta ugu fadli badan buu nebigu yihi waa maalinta jumcada 5 khasladood bay jumcadu maalmaha kale ay kaga fadli badan tahay khasladda koobaad buu nebigu yidhi abuna aadam calayhi salaam maalin jimco ayaa nebi aadan la abuuray maalin jimco ayaa jannadana la geliyey maalin jimco ayaa jannada laga soo saaray maalinta jumcadii waxaa ku jirta buu nebigu yihi saacatulijaaba saacad ilaahay uu ducada qofka ducaysta uu aqbalo maalinta jumcadana waxa uu nebigu yihi saacadda qiyaamada ayaa dhici doonta marka bishii rabadaan iyo jamce waa nicam weyn weeyaan ilaahay inaan ugu mahadino weeyaan habeenkii ugu horreysay bishani ay bilanaysay waxa uu nebigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam iclaan ayaa xagga ilaahay ka imanaya malag baa dhawaaqayo odhanaya yaa baaqiya alkhayri aqbil warkii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrkee soo qaabil waa bishii khayrka weeyaan waa bishii naxariista weeyaan waa bishii dembi dhaafka weeyaan waa bishii naarka xoraynta weeyaan malag baa odhanaya yaa baaqiya alkhayri aqbil kii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrkee soo qaabil oo soo jeeso oo cibaadada ilaahay soo qaabil oo salaada taraawiixda soo qaabil oo qur-aanka akhriskiisa soo qaabil oo kahratu lkhayr bishani waa bishii khayrka ajarka badan laga helaye soo jeesa buu leeyahay malagaasi soo qaabil wayaa baaqiya shari aqsir kii dembiga iyo fujuurka iyo macsiyada iyo xumaanta ku dhiiranaya mar walba xagga sharka u degdegayow bishani bishii ilaahay la caasinaye dembiga la laaqanayay ma ahayna ka joogsa buu leeyahay oo ka gaabso waa bisha nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi haddii rabadaan uu yimaado albaabada jannada ayaa la furaa wa fii riwaayatin albaabada raxmadda ayaa la furaa malaa'ig albaabada naarahana waa la xidhaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maradatu shayaaiinna waa laga xidhaa bini aadanka
وبش كلية إلهي جل وعلا قرآنك وكشيء مقعيقة شهر رمضان وبش ما ركتان اللي يري وبش القرآن كنا وصودقي وبش كلية النبي أو يري يهبين كسته أو بشهر رمضان كم يدبو النبي يقول وحو إلهي لي هاي الضوء ونار تكحريو وبش كلية إلا شيء إن الباب جنة الله فرو وبش كلية إلا شيء إن الباب النار هنا الله حلو بل تريه فضائل كيك بشهر رمضان فضل إلى ده وبش كلية النبي يقول يري مردة الشياطين والله قحر بني آذنك وبش أي كجرت هبين كي ويناء قرآن كي إلهي وصدا قارك وقو أماني ويري إنا أنزلناه في ليلة القدر طبعا كدمان الله نقارسيه وبالآذو بركة سنة حرمت ديدا إن لا سيا أي متيسد أي مدن تعبشني الصوم جنة صومك وحو نبيك كشيء فضائل كيس كذلك إنه يهي قاشان الصوم لي وأنا أجزي به إلهي نواكلها حديث القدسي صومك أنيقا أيا إسكالي أنيقا أنا أدونك كعب المرين دونه وبشأ النبي محمد عليه الصلاة والسلام يري صائمك إنتو نن أفرين وحا أوليه دعاء أقبله ومرك إعداد أي سيدة عيسو هذا فرك أودي أرجروبي سحلق دعاء والله أقبلايا باهد هذا إلهي وشيقه صومك وقاشان الصوم جنة نارتو قاشان كاغا نقونيا شهوات النفط أيو قاشان كاغا نقونيا معاصد أيو قاشان كاغا نقونيا xanuunada dhakhtaradu ay daweyn kari waayaan ayay bisha Ramadaan ay daweysaa bal dhakhtarada ay waraysta oo dhahada bishee baad ugu shaqo yartihiin waxay ku oranayaan bisha Ramadaan baan ugu shaqo yarnahay nin doctor oo maalin ka hadlaya ayaa yiri bishii caafimaadka timiday bishii dadku ay bogsanayeen baa timiday waayo baa lagu yiri wuxuu yiri bisha cid noo timaado ma ba aragnay buu dadka bukaanku way yaraadaan وبشي عافماتك وبشي إلهي تبارك وتعالى لو دواناي وبشي دم بدافك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بشا نينكا صوم ابو نبي غليهي مالين كاستو او بشا كميدا نينكا صوم ابو نبي غليهي دنبيgiisii horona waa loo dhaafaya man saama ramadaan bisha ramadaan ninka sooma iimaanan isaga oo iimaan leh oo yaqiin leh oo garanaya amarkan inuu yahay amar Allah xaqiisa ka yimiday ihtisaabna waa maxay ajarka iyo thawaabkana ilaahay tabaaraka wa taala ka dalbayo ilaahay ka rajaynaya inuu ilaahay ka abaal mariyo dambigiisii hore oo dhan waa laga dhaafaa buu nabigu calayhi salaatu wassalaam من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نك بشهر رمضان صلاة تراويح ذا أكعب نبي قليه عليه الصلاة والسلام سقوا إلهي كل صون إيمان قبه واحتسابا أجر يا ثوابنا إلهي كدل بايو إلهي كرجينا يا أجر وكسي عبادة سقنا ذنبه هري وقد عيو دم بالقد عفاب النبي قل عليه الصلاة والسلام وابشا ونبينا يري عليه الصلاة والسلام هدي متكين وأفرايو تمرها كو أفرب ونبي قل تمر هدي وتمر ويانا بيها عادها كو أفرب ورسولك يري فشريعة الإسلام هو عجيب لبدانا الدواء كجرته وقو تمرتا محو نبي قل تمرتا وهو الرئيسيي وحال عنتدى إلى هاي دولك أو كسو صار أو دن مذ والب في تاميغا كجرتا أيا تمرتا ودن إلى هاي كو أبو ريبا ليدي hilibka fitamiga ku jira timirta waa laga helayaa caanaha fitamiga ku jira timirta waa laga helayaa bariiska fitamiga ku jira timirta waa laga helayaa wax liya waxa nabaataat iyo khudrawaat iyo maaragtaan nicam ilaahay bin aadanka uu siiyay cunayaan mid walba gaar ahaan fitamiga si gaar ah iyada loogu abuuray ayaa ilaahay intuu soo jamciyay baa ilaahay timirta inoo soo dhaxgeliyay
timirtu waa nicmadda muslimiinta ilaahay khaaska uga dhigay waana zaadkii muslimiintu ay diinta caalamka o dhan ku gaadhsiiyeen asxaabu muxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam waradia allahu canhum ajmaciin markay risaaladda muxamediyada ay xambaarayeen ee adduunyada gaadhsiinayeen zaadkay isticmaalayaan wuxuu ahaa timir buu ahaa timir mana xumaato taariikhdeeduna ma dhacdo saalixiintu waxay odhan jireen aqalka timir aynan oolina faqri baa aqalkaa yaalla markaa buu nebiguna leeyahay calayhi salaatu wasalaam ninkii soomayow haddaad soontid buu nebigu leeyahay kiina afuraya timir ha ku afuro hadduu timir waayana biyaha cad ha ku afuro biyaha cadna waa daahir buu nebigu yihi oo micdada jidhkaaga jeermiskii ku hadhay oo dhan bay bannaanka u soo saarayaan bishani waa ilaahay ayaad ugu dhowaanaysaa qofka muuminku ilaahay buu ugu dhowaanayaa dembi dhaaf buu ka helayaa naartaa ilaahay kaaga xoraynaya darajaadkaagaa kor loogugu qaadaya caafimaadka ayaa kuu ziyaadaya waa bishii qur'aankuu soo degay weeyaan nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam jibriil calayhi salaam intuu u yimaado ayaa isagii jibriil bishaa rabadaan qur-aanka ay darsi jireen qur-aanka ayay akhrin jireen qur-aanka marka inakuna waxaa laynaga doonayaa inaan bishaa maalinteedana aan wakhtigeenna aan buuxinno oon cibaadada iyo salaada iyo qur-aanka iyo dikriga iyo daacadda ilaahay iyo mudaarasata alcilmi aan ku buuxinaa laynaga rabaa habeenkiina salaatalleyl iyo munaajaad iyo salaata taraawiix inaan wakhtigeenna ku buuxinaa laynaga doonayaa laba meeloodba shayddaankaa gala bay culimmadu yidhaahdeen wakhtiga madhanna shayddaanka ayaa dega aqalka madhanna shayddaanka ayaa dega marka qofka muslimkaa la dooni maayo wakhtigiisa inuu ka dhiga firaaq bal firaaqa wakhtigaaga ka ilaaliyo oo buuxi oo maxaan ku buuxinaynaa waxaan ku buuxinaynaa bishani maadaamay tahay bisha qur-aanku uu soo degay qur-aanka akhriskiisa ayaan badinaynaa maadaamuu nebigeennu calayhi salaatu wasalaam bisha malakuljibriil intuu u yimaada qur-aanka ay wada darsi ay jireen inakuna bisha rabadaan waxaa la doonayaa qur-aanka inaan darsino ood ugu yaraan bal maalintii hal juz oo qur-aan aada akhridaa si bishaa rabadaan qur-aanka mar aada u khatimtaa haddaad saddex juz maalintii aada akhridana waxaad khatimaysaa 3 jeer baad qur-aanka khatimaysaa haddaad 5 juz aad akhrida qur-aanka maaragtaane maalin kastana 6dii maalmood baad qur-aanka ku khatumaysaa oo laga yaabaa bishaa rabadaan inaad khatimto maaragtaane 6 jeer 7 jeer cuثmaan binu cafaan radia allaahu canhu ayaa odhan jiray haddii quluubtiinu daahir ay noqon lahaydna qur-aanka akhriskiisa kamaad daasheen buu odhan jiray qur-aanka akhriskiisa kamaad daasheen lidaalika waxaa salafu saalix culammadu ay sheegaan saxaabada maahayna dadkii ka dembeeya xataa taabiciintii taabicu taabiciin ilaa yowmina haada dad waxaa la helayaa qur-aanka maalintii mar khatimaaya qaarkoodna 2 jeer bay maalintii qur-aanka khatimaan oo waa la helaa imaam ashaafici raximahullah ayaa laga sheegay inuu bisha rabadaan 60 jeer qur-aanka uu khatimaya 60 jeer inaguna maanta maxaan ka sheekaynaynaa muslimiinta maanta weliba bishan rabadaan iyo maalmahan sheekada inagu badan waxa weeyaan xanuunkaa yaree adduunka lagu sheegay maanta ee dadka o dhan ka cabaadsiiyey ka qaylisiiyey labadii isku timaadaba xanuunkaa bay ka sheekaynaysaa maanta yaa leyt sida xanuunka aan u hadal hayno haddaan ilaahay u hadal hayn lahayn oon qur-aanka u akhrisan lahayn oon istikfaarta u badin lahayn oo ilaahay dikrigiisa u badin lahayn lakaana khayran khayr baan ku sugnaan lahayn man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsi baa ilaahay yidhi xadiis alqudsi addoonka aniga keligii xasuusta baa ilaahay leeya keligay baan xasuusan addoonka jamc igu dhex xasuustana jamca uu igu dhex xasuustay jamc ka khayr badan baan ku dhex xasuusan baa ilaahay yidhi xadiis alqudsi natadaakar intaad wax kale hadal haysid makhluuq intaad hadal haysid waxaad inaad hadal haysa kula quman oo kuu fiican inaad ilaahay la munaajootid saalixiinta waxay ahaayeen markay dadka la hadlayaanna way dhibsanayeen markay keligood meel ay fadhiistaanna waxay dareemayeen inay wehel ay haystaan waayo keligood markay fadhiyaan waxay la munaajoonayaan waa ilaahay qur-aankiisay akhrisanayaan qur-aanku waa kalaamki ilaahay waa mawcidadii ilaahay oo caalamka u jeediyey haddaad doonto adigu inaad ilaahay aad la hadashidna baa la yidhi salaada tukog
وقفك تكوني إلهي بولمنا جونيا هذا دونت إلهي وإنه أديك كلها لنا قرآن كيسك الله فرق قرآن كإلهي أخرسه صحابة رضي الله عنهم اسكدا مساجد كدحديدي meelaha majaalista ay leeyihiin markay fadhiyaan waxay maaragtaane ay dhageysanayeen mar walba inay ilaahay isxasuusiyaan oo aakhirada isxasuusiyaan oo saacada qiyaamada isxasuusiyaan fi sunan waxa uu nabigeenu sheegay wuxuu sheegay imaam muslim rahimahullah rasuulkeena calayhi salaatu wassalaam ayaa saxaabadiisa qaar kamid oo meel fadhiya ayuu nabigu u yimiday markaa buu nabigu ku yidhi maxaad hadal haysan bal ii sheega markaasay yidhahdeen saacadda qiyaamada ayaan hadal haynaa waa zamankii waa 1400 oo sano ka hor intay saxaabadu meel ay fadhiistaan bay ka sheekaynayeen saacadda qiyaamada ee soo socota goormay dhici doontaa annaka uga xaq leh inaan maanta hadal hayna saacadda qiyaamada markaa buu nabigu ku yidhi innaha lan taquuma saacatu xataa taraw qablaha 10 aayaat saacadda qiyaamadu ma dhacaysa buu nebigu yidhi imani mayso ilaa ka hor aad aragtaan 10 calaamadood buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam 10kaa calaamadoodi waa calaamaatul kubra ayaa la yidhaahdaa laakiin waxaa jira ashraadu saaca wax la yidhaahdo calaamaatu suqra iyo kuwa la arkay maanta haddii la tiriyana maanta magaalo walba waa laga helayaa calaamaatu suqra laakiin nebigu saxaabada xadiiska wuxuu ugu sheegay saacadda qiyaamadu inaynan dhici doonin ilaa aad aragtaan ama adduunyada dusheeda lagu arko 10 calaamadood buu nabigeenu yidhi calayhi salaatu wassalaam فذكر الدخان والدجال ودابة ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها وخروج ياجوج وماجوج وثلاثة خسوف خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قعر عظم تحشر الناس إلى محشرهم بنبي يدي عليه الصلاة والسلام وحو رسول كينو يدي ساعد قيامته ما دعي دونتو إلى الله أركو 10 علامات مركب النبي شيغي قيق سمد كيمن يبو نبي شيغي كما في نص القرآن فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم وحو نبي شيغي قيق سمد كيمن يبو نبي شيغي وحكلو نبي شيغي دجال بو نبي شيغي عليه الصلاة والسلام وأدوية بقعد كما تالو إلا دجال أمريا dadkana wuxuu ka dhaadhicinayaa inuu yahay rabbigii isagu dadka abuuray inuu yahay buu ka dhaadhicinayaa wa sharru ghaa'ibin yuntadar ayuu nabigu yidhi faddajaal fa sharru ghaa'ibin yuntadar aw as-saa'a wa saa'atu adha wa amar dajaal buu nabigu sheegay inuu imanaya aakhir zamaanka maanta zamankan maanta ka warrama صحابة رسولك رضوان الله عليهم أجمعين أحاديث الدجال كصابسا مرقو نبيقو وقور رمايو وحي جادين وحان مودي جرني سدا وهذا النبي قلوب تهدى أساميني درتنا قدام بيس إنو الدجال كجرانو مليني ناس عبتو جادين وأكوني أفر بغلو سنة كهر ويان وحاس ونبيقو كور رمايو إنك أنا ما أنت زمك أنا كور رما كورونا فيروس ما أنت عالم كنا وريريو لهذا الحياة حنون أمر إلهي كالسعودة وجند من جنود الله وقفك إلهي وقلت لك لما أنا قفك الآن كل عين أي عالم كودا لابد يسكت ما دمانت هكذا كيسان إيسا صحابتنا كون يافر بغلو سنة كهر وحي كشا كيسان دجال إنو صو سعودة مركو النبي قد دجال وغشا كينا ينا بيد هذين وحنون ملينيني يقين تخبر كالنبي قاي أقبان درتنا قدام بيس الدجال إنه كجرانو ملينين أصحابته إلادين دجال بنبي وشيغين وأدون كودن مرايو جنة النار وحويك بوتا وحو نبي قوليه عليه الصلاة والسلام قفل يقفك السقر الرمية الراعنا وحا جنة وتا أيو كتوريا ضل علي دتك السقر إنكري هذا الرب متهيدي كافر دجال آيات هينا نارتو كتوريا مرقاب نبي قوليه عليه الصلاة والسلام طبعاً كآيات سورة الكهف نكا آخر استمالنتي إلى هاي في الندى الدجال وكبت بادي أبو رسول كويلي وفي رواية طبعاً كدبان النبي قواه شيئا وحاكلوا النبي قال شيئا عليه الصلاة والسلام دجال إنه أدون كودا وصامين وقليا مكية مدينة مقليا أبو رسول كويلي
وفي رواية حديث وحي شيء سأفر ملوت دجال مقلايو جبل الطور بورت نبي موسى عليه السلام لوغو وحيودي إلهي نبي موسى وكل مناجود مقلا يد الدجال مكة مقلايو مدينة مقلايو قدسنا مقلايو أبو رسولك المسجد الأقصى الدجال مقلايو لكن شريرين دتك الشركة بدل منافقين تا مكية مدينة دحديدة كله من يكون أيك الدجال بنانك وقبح يا أبو رسولك يري على مدى صدحات بالنبي يقول ودابت دولك كصوبة حيسا بورت الصفا إلى إن الصفا والمروة صخر لا بكصوبة حيسا يدنا الديد ودم بين مريسا قف كستو الديد كويا الله النبي يقول وإشابدين وحقف والبوي هين وكوكر من دون تابو رسولك يري مؤمن كمؤمن بيكو شابدين كافر كنا كافر بيكو شابدين وعاكلوا النبي يقول شيء إنه إيمان يا النبي عيسى عليه السلام ينزل عليكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدع الجزية نبي عيسى عليه السلام أيا دشينا كسو دقيدون أبو رسولك يري حكما إساقو حاكما شريعة الإسلام قد يدكو حكومي دونا وعدالة فلي دونا ظلمك ما أنت أقل والبا يا مجتمع والبا ساميي وكرفعي دونا صليبك قالوا أيدادان نبي عيسى لقو حلول لقو دلدلين وجبين دونا عدالة الإسلام قد يدونا كو حكومي دونا أبو رسولك يري وعاكلوا نبي يقول شيء يا جوج وماجوج يكن الله فوري دونا أبو رسولك يري والله بقى أمضوضو كو أبتر صدا يافث بن النوح بكو أبتر سنيام أمدي بوافر بغلو كن mid iyaka kamida ma dhintabaa la yidhi ilaa uu arko kun wiilo isagu uu dhalay oo qaan gaadho dagaalka galay mooyaane ummadaani adduunyada waa lagu soo furi doonaa xataa idaa futixat yaajuuj wamaajuuj wahum min kulli xadabin yansiluun waa ka qur-aanka ilaahay noogu sheegay waxaa kaluu nebigu sheegay ashamsu buu nebigu yihi calaamada lixaad waxaa ka mid a cadceedda oo ka soo noqota meeshay ka dhacdo laba marxalo qofku intaynan soo gaarin hadduu toobadkeena buu nebigu yihi toobadda ilaahay jalla wacalaa waa ka aqbalaa laba marxaladood naftu markay ka soo baxdo jidhka oo dhan ee halkaa hunguriga dhuunta iskugu timaado hadduu yidhahdo qofku markaasaan ilaahay u soo noqonayaa toobaddaa laga aqbali maayo nacam hadday cidaadu galbeed ka soo noqotona albaabkii toobadda waa xidhmay buu rasuulku yidhi saddex meeloodoo adduunyada ku taallana buu nebigu yihi dhulka ayaa gu'i doona خصف في المشرق دولك عداد أي كسو بحضو ودنا دنيا ومدى دنبال لواي دونا على مدى تضباد واتاس على مدى السديدات بالنبي يقول خصف في المغرب قلبيت كأدويدنا ودنا دنيا ومدى دنبال دولك لقوي دونا على مدى السقالات بالنبي يقول خصف في جزيرة العرب جزيرة العرب رحدة دنا دول ومدى دنبال لواي دونا على مدى التوبنات بالنبي يقول ولا ليال والنار كسو بحي سعدن مقالة عدن gunteeday ka soo bixi doontaa banka qiyaamada dadka ku soo ururin doontaa buu rasuulku yidhi tobanka calaamadood baa ka soo horeeyay buu nebigu yidhi saacadda qiyaamada tobanka calaamadood maanta wax ka sheekeynaya waa yar yihiin xanuun bay ka sheekeynayaan xanuun gaajay ka sheekeynayaan abaar bay ka sheekeynayaan waxaasaa maanta adduunya dadka la weyn maanta bishani markaa waa bil barakaysan yaanan hadalka adduunyada isku badin man lam yadac qawla الzuuri wاlcamala bihi falaysa lilaahi xaajatun fii an yadaca طacaamahu wa sharaabahu maaha waxaa laga soomaya baadiye biyo keliye waxaa la doonayaa in carabkaagu laqwiga ka soomo dhegtaadu laqwiga inay ka soonto ficilka xun inaad ka soontid calooshaadu xaaraanta inay ka soonto wakhtigaaguna meelaha xunxun uu ku baxayo inuu ka soomaa loo baahan yahay makhluuqa sheekadiisa hadalqaadkiisa ka soon haddaad sheekayn qur-aanka akhriso haddaad dad u sheekayn saacadda qiyaamada ka waran haddaad dad u sheekayn dadka ilaahay uga sheekee haddaad dad u sheekayn dadka aakhirada u soo jeedi haddaad dadka wax u sheegi ilaahay xaggiisa ummadda ugu yeedh waxaa maanta adduunyada laga sheekaynaya waa waxba kama jiraan fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun baa ilaahay leeyahay xasuusta aniga anaa ini xasuusanaye ii mahadnaqa baa ilaahayna leeyahay ha iga gaaloobine baa ilaahayna leeyahay
marka bishani waa bil aad u barakaysan dadka muslimiinta waxaa la doonayaa fursadda inaan ka faa'iidaysanno waa bil ducada ilaahay aqbalayo balaayooyinka iyo masiibooyinka la sheegayaana dadkeenna iyo dalkeenna iyo dalalka muslimiinta iyo dadka muslimiinta allaha ka ilaaliya amiin dhahada dadkay dhibtaas soo gaadhayna allaha ka qaado dadkii ku dhintayna allaha u naxariisto dadka uu hayana allaha caafimaad sariica allaha siiyo ducada ayaan haysanaa ducaa udcu llaha wa antum muuqinuuna bilijaaba buu rasuulku yidhi ilaahay barya buu nebigu leeyahay oo baahidiina ilaahay u sheegta ininkoo yaqiinsan oo ku kalsoon ilaahay inuu ducadiina aqbalayo istaqbiluu biamwaaji اlbalaa'i bاdducaa waxasinuu amwaalakum biالzakaa wadaawuu mardaakum biالsadaqa tiba nabowi imaam ibn qayim raximah اllah xadiiska ayuu ku sheegay balaayooyinka dabayluhu ay wadaan buu nebigu leeyahay duca ku qaabila ducadu way weecisaa balaayada xoolihiinnana waxaad ku ilaalisaan buu nebigu leeyahay zakada haddaad zakada dhiibtid oo dadka mustaxiqiinta loogu talagelay aad xoolahaaga aad ka siisid xoolahaaga ilaahay kaa dayici maayo ilaahay baa ku ilaalin kiina inaga bukoodana buu nebigu leeyahay sadaqada ku daweeya muxuu leeyahay hay-adda caafimaadka adduunkuna waxay dadka ka dhaadhicisay xanuun aan dawo loo hayn ba adduunka soo galay nebi maxamedna waxa uuna leeyahay kiina inaga bukooda sadaqada ku daweeya warkayna galay markaa warkeenna galay maanta hay-adda caafimaadka adduunku waxayna tidhi xanuun aan dawo loo hayn baa jira kala dheeraada nebi maxamed waxa uuna leeyahay xabatu sawdaa dawaaءu min kuli daa xabasuuda buu nebigu yidhi xanuun kastoo adduunyada ka jira ayadaa u dawaa buu nebigu leeyahay ilaa geerida mooyaane cilmiga gaaladu ay ku hadlayaan waa cilma tajaarub waa cilmiga tajaarubka cilmiga nebi maxamed uu ku hadlayana waa cilma alwaxyi weeyaan wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa gaaladu waxayna leedahay xanuun aan dawo loo hayn ba adduunyada gaadhay iska ilaaliya ilaahayna qur-aanka waxa uu ku leeyahay fiihi shifaaءun linnaas waa casalka malabka dawaa ilaahay geliyey khabarka dadku ay sheegayaan mu'minka inuu gala maaha khabarka ilaah iyo khabarka nebigu sheegeen qalbiga ha ku galo dhibaato kastoo adduunyada lagu sheego xalkeega ilaah iyo rasuulka innaka noo sheegay laakiin dadku warkaa uu galay allah inaga dhigo bishani waa bil barakaysan markaa han ducaysano in sha allah waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwaة اdaaci ida dacaan falyastajiibuu lii walyu'minuu bi lacalahum yarshuduun sababu nusuulka aayadda ay ku soo degtay maxay ahayd nin acraabi oo reer baadiyaa ayaa nebigeenna u yimid calayhi الsalaaةu wassalaam waxau yidhi yaa rasuul allah ilaaha xaggiisa aad noogu yeedhaysaa ma mid naga dheero markaan baryayno maanu qaylinaa mise waa mid noo dhow oo aan la munaajownaayo hoos baan wax ugu sheeganaa bal noo sheeg u aamusay nebigeennu calayhi الsalaaةu wassalaam deedna markaasay aayaddan qur-aanku soo degtay ilaahay uu leeyahay haddii aniga addoommahaygu ikaa weydiiyaan waxaad u sheegtaa inaan anigu addoonka aan u dhowahay ka i baryana baryadiisa waan ajiibi baa ilaahay yidhi ee aniga laakiin hay ajiibaan laba shardi baa lagu xidhay ducada in lagaa aqbalo imse shardi laba shardi falyastajiibuu lii ilaahay ajiib oo amarka ilaahay ilaali oo shareecadda ilaali oo diinta ilaali oo taacadda ilaah ilaali oo wixii macruufa ilaahay ku faray la kaalay wixii munkaree shareecaddu ay kaa reebtana ka reebtoom walyuuminuu bi ilaahayna rumee oo ilaahay aamin macnaheegu waa maxay alqadaa waalqadar waxa ilaahay kugu xakumayna ku raali noqo wixii ilaahay kuu qadarayna ku qanac labadaasi hadday qalbigeenna ay timaaddo waxa adduunyada la sheegay oo dhan ayna saamayn maayaan waxa adduunyada maanta ka jira qur-aanka si fiican u dhegayso walanabluwannakum bishayin min alkhawf wاljuuc wanaqsi min alamwaal wاlanfusi wاthamaraat maxaa ku xiga wabashir saabiriin daawada xanuunada adduunyada ka jira oo dhan waa sabir weeyaan miftaaxu lfaraj waa sabir weeyaan
addoonkuna maaha musayara waa mukhayar addoonku mukhayar maahina waa musayar addoonku wax ma dooran kara isagu wixii ilaahay kuu qadara adiga waa inaad ku qanacdaa lidaalika nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waxa uu noo sheegay malaa'igtu markay ilmaha yar ay nafta ka qabtaan ayuu ilaahay malaa'igta ku yidhaahdaa addoonkaygii ilmihiisii ruuxda ma ka soo qaabateen haa bay yidhahdaan addoonkaygii midhihii qalbigiisa ma soo qabateen haa waan soo qabannay markaasuu ilaahay yidhahdaa famaada qaala cabdi addoonkaygii markaad ilmihiisii ruuxda ka soo qabateen muxuu yidhi balii sheega markaasay yidhahdaan xamidaka wastarjaca xamida ma macna alxamdu lilaahi calaa kulli xaal buu yidhi inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun buu yidhi markaasuu ilaahay yidhahdaa maadaamuu addoonkaygii markii ilmihiisa nafta aad ka soo qabateen uu aniga ii mahadnaqay uu isaguna xaggayga u soo noqday ibnu licabdii beytan fi ljanna aqal jannada uga dhisa aqalkaana waxaad ugu magac dartaan gurigii mahadnaqa mu'minku barwaaqadana uu ka macaashaa masiiba hadday ku dhacdana uu ka macaashaa waa qofka mu'minka laakiin fa ilaahay tabaaraka wa tacaala iimaanka haynoo adkeeyo amiin dhahada bishaan rabadaanna allah haynaga aqbalo dad walaalaheena dibadda taagan masaajidka maasha allah aad baa loo buuxiyey in sha allah khudbaddaan iska bilaaban doona allahna inagu anfaco wa sala allahu calaa sayidina moxamed